الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إلهي سبحانه وتعالى توفيق الله نوافجيه إيمانك يا إسلامك إلهي نوصه سبحانه وتعالى. maanta waxaan sida walaalkay maxamed oo idin sheegay waxaan ka hadli doonaa bisha ramadaanka soo dhoweynteeda iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu siday muhiimad gaara u siin jireen iyo dadkii wanaagsanay. laakiin waxaan leeyahay caawo waxaanu joognaa meelihii ugu dambeeyey bishii shacbaan. waxaa saxansaxadeeda iyo udeegeedu nagu soo dhacayaahi waa bishii ramadaan. ilaahay aynu barino, ilaahay aynu tuugno, aan ilaahay u tadarucno inuu ina gaarsiiyo bishii ramadaanka caafimaad iyo cimri wanaagsan, ilaahay inuu ina gaarsiiyo subxaana wa tacaala. bishii khayraadka iyo barakaadka. saxaabada rasuulkeenaga calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxay weydiisan jireen 6 bilood ka hor ayaa la wariyaa inay weydiistaan ilaahay inuu ramadaan gaarsiiyo subxaana wa tacaala, ayagoo caafimaad qaba uu gaarsiiyo. ramadaanka la gaaro ama bisha ramadaanka oo qofka u bilata oo u dhalata keliyada muhiimadu ma aha, waa in lagu waafajiyaa bishaasi inaad ka faa'iidaysato, inaad cibaadaysato. dad waxaa jira bisha ramadaanka ilaahay kasii fogaada subxaana wa tacaala, sidan xadiista nabigeena kusoo aroortay calayhi salaatu wasalaam. nabiga ayaa inkaaray, jibriilna waxa weeyaan wuu inkaaray, jibriil baa inkaar nabiga aaminiyey sida xadiista saxiixa taqaaniin kusoo aroortay. jibriil oo mimbarka sii fuulaya aamiin wuxuu yiri aamiin de nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaasuu nabigu aamiin yiri 3 jeer. markaasaa saxaabadu weydiiyeen waxyaalihii oo marka nabigu aamiin yiri waxaa ka mid ahay jibriil baa yiri qof bisha ramadaan usoo gashay ee aan dembigiisa loogu dhaafin allaha fogeeyo ilaahay subxaana wa tacala. markaasuu nabigu aamiin yiri calayhi salaatu wasalaam. maxaad u malaynaysaa qof oo nabigu jibriil inkaaray nabi maxamedna u aaminiyey calayhi salaatu wasalaam. marka gaaritaanka bisha ramadaan ku aad gaarto ku dhalataa kaliya muhiimadu ma aha. waxay tahay su'aashu bisha ramadaan ma ilaahay baad u soo dhowaanaysaa mase ilaahay baad ka fogaanaysaa subxaana wa tacaala. aan weydiisano ilaahay inuu nagu arsaaqo subxaana wa tacaala maalintii inaanu soonno, habeenkiina aan istaagno oo aan cibaadaysano, cibaado wanaagsan inaan cibaadaysano. dad fara badan baan jaanis u helinin bisha ramadaanka inay gaaraan. maanta qof baa dhimanaya, beri qof kalaa dhimanaya, ramadaan ka hor dad badan baa dhimanaya. dadkaasoo jeclaan lahaa bisha ramadaanka inay soo gaaraan. haddii marka ilaahay adeeg kuu qoray subxaana wa tacaala inaad ka mid noqoto dadkii nool bisha ramadaanka, haddana aad gaabisid, waa wax aad u xun weeyaan. sabanada muddada cumriga insaanka sidiisaba sabanka lagu nala siiyahay waa 3 midkood weeyaan. sida ayadda quraanka ay tusaaleynayso ay tusinayso oo ilaahay uu leeyahay jibriil asagoo ka hadlaya lahu ma bayna aydina wama khalfana wama bayna dhalik wama kana rabbuka nasiya subhanahu wa ta'ala. ilaahay wuxuu leeyahay waxa inaga horeeyo subhanahu wa ta'ala sabankii tagay wixii dhacay ilaahay asagaa iskale. wama khalfana waxa gadaashanada imaan doono oo sabanka soo socdana asagaa iskale. wama bayna dhalika inta wuxuu u dhaxeeyo waqtiga aanu joognana ilaah asagaa iskale. sabanku ama ha tago ama ha soo socdo ama iminka hala joogo, wama kana rabbuka nasiyan, ilaahayna mid wax hilmaamaya muusan ahanin. ilaahay mid hilmaamay oo wax hilmaamaya muusan ahanin subxaana wa tacaala. marka waqtigu waa waqti tegey, waqtigii ina soo dhaafo cumriganaga iminka ina soo dhaafay waa waqti aanan dib u soo celin karaynin. laakiin waxaan leenahay oran mayno maa faata maata, oran mayno wixii tegey waa dhinteen, oran mayno. waxaan awoodi karaynaa inaan waqtigii tegay waxyaalihii dhacay aanu saxno. waxaan ku saxaynaa toobad baan ku saxaynaa, waxaynu ku saxaynaa istighfaar baan ku saxaynaa. sida xabiibka naga calayhi salaatu wasalaam uu yiri at-taa'ibu min adh-dhanbi kaman laa dhanba lahu. qofkii dembi ka toobad keenay wuxuu la mid yahay qof aan dambaabin buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam. ilaahi waa ghafuur, dembigana waxa weeyaan ilaahi waa qariyaa. عفونا وياهي يعفو عن المخطئين، دتك الجفي إلى هو كتر ترى من هو وين دم بيجي إن الله قبل
midna qofka dembiga in laga tirtiro dhammaanteed ba asagoo dhicin oo kale laga soo qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jeceliya dadka toobad keena oo ilaahay wuxuu yiri ina allaha yuxibu tawaabiin dadka toobadkeenka badan oo toobad keena had iyo jeer ilaah waa jecel yahay subxaanahu wa tacaala inaad ilaahay dadku jeclaaday ka mid noqoto oo sebankii ku soo dhaafay iyo duruubtii kaa dhacday ah ka toobad keentahay waa masale aad iyo aad weyn u wanaagsan weeyaan ilaahayna dembiyaasha dhammaanteed waa dhaafaa dembi laga soo reebo oo leeyahay dembigan ilaahay ma dhaafayo ma jirto haddii qofku uu toobad keeno oo istikfaarsado oo shuruudeeda ula yimaado ina allaha yakfiru dunuuba jamiican buu ilaahay leeyahay ilaahay dembiyaasha dhammaantood waa dhaafaa subxaanahu wa tacaala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي الذنوب توضعفا لما أنت إلهي سبحانه وتعالى بل إلهي وحنوش القرآن جل وعلا ذاتك الدباب الدب جوذبا إن إلهي أجر أقول بدلا يهدي طولت كيانان وإلهي أوليه جل وعلا أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات كوحدة سوا كوحدي xumidoodii wanaag loogu bedelay tay toobad keeneen marka sebankii tegay oo na soo dhaafay waan awoodi karaynaa inaan tirtirno tirtirka aan wax ku tirtirayno gacantanada ilaahay geliyey subxaanahu wa tacaala inaan toobad keenno istikfaarsano toobadkeenka iyo istikfaartu waxay kaloo muhiim u yihiin haddii qofku uu ramadaanka u diyaar garoobayo waa inuu qalbigiisa xalaa وإنه نظيفية سو عبادة معانسده سي عبادة الله فرفره ضدك وحيالها عبادة كهر استاجة أما عبادة كان إنه سنكون معانسن وحا أساس ذنوب تأي معاصدة أساس مركز سيدا تشيكا وحريس أو تشيكا قادو مايريسو أو أدو ويسا قادة ريسو أو أدو قبايسة ريسو أو أدسو نظيف ريسو سيدا سوى كلام لغا هي إناد إسو حشد أو طوبة إلهي أدو طوبة كينيسو إلهي جل وعلا ذنوبت إنه كل ضعف ويديسريسو أساس ما اللي بهي إنا أسو حشيد أو توبة كانت هو النظافة وياه قلبي أكون نظيف له قفكم مركب الذنوب تيس إلهي وضعف سبحانه وتعالى وحكدنا عبادين كانوا معانا ذا وحكدنا عبادين كانوا في فرمان وحكدنا عبادين كأنه قفكو أو تعلابه أوهلوبه أي كدرنا هذا سبنكي تجيساس ونقبلنا waxaa soo haray sebanka mustaqbalka ah oo soo socda oo inoo iman doona biri iyo saa dambe iyo saaquun iyo bishii ramadaanka aynu sugayno ma garan doono inaan gaarin doono iyo in kale ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dad jeclaan lahay inay gaaraan ayaan gaarinin oo maanta farta dhexda ka qaniinaya shalay waxa weeyaan way culayeen shalay waxa weeyaan way hadlayeen shalay way cibaadaysanayeen laakiin maanta waxa weeyaan ma awoodi karayaan adduunyada kuma raaxaysan karayaan ما عبادة سنكريان واتجن عمر جود يبقى دماضي ربي وحي ويدي سنة إن دقيقة لو قدره لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل بعيد أرمايا ربي يودي ما يدكت وقت يربو قفك ويدي سنة لكن أنا جاي أديك ما أنت بتشانس كاسوان هاي سنة بالري إلهي هدو إنه قدره سبحانه وتعالى عمري جنجا إلهي وقدره جل وعلا waxaan ka gabaahanyahay inaan ka faa'iideysano hadaynu gaari weyno noocan ku gaari karaynaa shariicadu noo sheegtay oo ah niyad wanaagsan hadda niyeysanayna qofku niyada wanaagsan wuxuu ku gaaraa wax uusan falka ku gaari karaynin adigoo niyeystay caawo ee ku tala galay bisha ramadaan ina soonto ee jadwalkaaga degsaday ee programkaaga ku degsan yahay ee waxaad qaban lahayd niyeystay tii alla haday ku timaado waxaa lagu qorayaa bishii ramadaanka adigoo soomay oo kala lagu qorayaa maxaa yeelay rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka ansaxday inuu yiri wa innamaa likulli imri'in maa nawa calayhi salaatu wasalaam qof walbaba wuxuu leeyahay wuxuu niyeystay buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ma fara badanaa dadka loo qoray acmaal badan oo aysan samaynin niyada ilaahayeen baa loogu qoray waxaa dhici karaysa camal yar niyo wanaaga daraaddeeda inuu camalkaasi camal aad u weyn inuu noqdo niyaduna dadku way kala duwan yihiin qof niyadiisu meel sare u niyeystaa markaas ilaahay darajo sare gaarsiiya qofna waxa weeyaan meel hoose ayuu ka fikiraa had iyo jeer markaas waxa weeyaan meel laga doonayo inuu amaashiisu meel weyn gaarsiiyaan ayuu hoos uga soo dhacayaa rasuulka naga waxaa ka ansaxay calayhi salaatu wasalaam inuu xabiibka nagu yiri idaa marida alcabdu aw saafara kutiba lahu
مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا برسولك عليه الصلاة والسلام كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رسولك وحولي عليه الصلاة والسلام أدونكو حدي أو حنون صدو أما أو صفره waxa loo qoraa wuxuu samayn jiray acmaal ah waqtiga oo deganay waqtiga oo magaraysa muqiimka ahaa ee uu fayoobay buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam maxaa keenay acmaashan waa acmaal ay niyeysteen qofku wuxuu leeyahay cibaado lahay oo raatib u ah oo sameeyo ayuu leeyahay cibaadadii baa loo qorayaa qofkaas ayaa loo qorayaa waana niyadiisa calayhi salaatu wasalaam nabigeenu wuxuu samay qof qani ah oo hodan ah ee sadaqa badan oo khayrka wax ku bixiya iyo qof faqiir ah oo aan xoolo lahayn laakiin niyeysan niyad wanaagsan laho oo oranaya law anna liya maalan la facaltu fihi kama facala fulan haddaan xoolo yeelan lahaa oo xoolo haysan lahaa ninka ahlu khayrka masaajida dhisa ee dugsiyada malcamadaha dhisa ee maarta khayraadka si dadka si maartay ku sadaqaysta ee sadaqadiisu badan tahay ee fuqarada iyo masaakiinta waquudiya qofkaasi wuxuu sameeyay oo kala sameyn lahay buu leeyahay hadaan xoolo lahan lahaa marka niyadiisu run bay ka tahay fa ajruhuma sawabu rasuulku alayhi salatu wasalaam labaas qofood waa simeeyay qofka falahan u sameeyay iyo qofka maarta niyada ka sameeyay oo niyadiisu run ay ka tahay nabigu wuxuu leeyahay ajirka alayhi salatu wasalaam waa simeeyay culimada qaar waxay leeyihiin niyada ka sameeyay marka qofku waa inaan sebenka soo socda waa inaan niyeysano oo aanu diyaar garowno برنامجka naga degsano bisha Ramadaan waxay kaaga baahan tahay inaad maartay jadwal degsatid ma garanaysaa oo jadwalkaaga oo jadwal ku nidaamsan inaad leedahay si aad uga faa'iideysatid sabanka waxa muddo saddexaadi waa waqti hadda aynu joogno caawo iyo saacadan hadlayno waa waqti aanu joogno ilaahay baa umriga ina siiyay subhanahu wa ta'ala umriga aqligana kama imaanin doorashadana kuma imaanin waa qorshe ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkii kula da'da ahaa iyo dadkii magaraas kula filka ahaa iyo dadkii aad noolaan jirteen bal dib u milciso imisa ka nool ilaahay baa ku soo reebay subhanahu wa ta'ala ilaahay baa umriga ku siiyay marka umriga ha dayacin qiila wa qaalaha kullu minni dadku waxa weeyaan umrigooda sida ay u lumiyaan ha u luminin umrigaagu waa lagu weydiinayaa maalinta qiyaamada umrigaagu waa daacadaad ka samaysan lahayd asaga ayaa xoolihi ah umrigu waxa la yiraahdaa waa lacag weeyaan waa sidaas saacadahaaga ayaa lacag saacadaha shaqaysan marka aakhirada saacadahaas loo shaqaystaa umriga imka aanu haysano aynu ka faa'iideysano ogow saddex arrimoodba waa saddex arrimood oo muhiim ku ah si aad u badbaado iyo si aad u badbaadno saddex arrimoodba muhiim bay noo tahay khaasatan bisha Ramadaanka saan uga mid noqono dadka liibaanay waa saddex arrimoodba aan ku soo koobi doonaa arrinka koowaadi waxa weeyaan waxay inooga baahan tahay bisha Ramadaanka ikhlaas iyo daacadnimo iyo ilaahay qalbiga nagana u sifayno subhanahu wa ta'ala arinta la yiraahdo daacadnimadu waa arin aad iyo aad u weyn weeyaan bini'aadamku inay gaaraan aad bay u adag tahay waxyaalaha ka hor imaanaya ee faraha badan aad bay u fara badan yihiin ilaah subhanahu wa ta'ala quraanku wuxuu ku leeyahay faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada quraanku kali ammaan ma yaqoftu inuu amal wanaagsan sameeyo amal wanaagsan sameeyo waa amaananta laakiin su'aashu waxay tahay amalka aad sameynayso wanaagsan ma yahay mid saafi ah ma yahay mid ilaahay u kali ah subhanahu wa ta'ala ma yahay mid aad ilaahay ula jeedid jalla wa ala hadii aad aakhirad diyaar u tahay oo aad rajo ka qabtid rabbi la kulankiisa subhanahu wa ta'ala oo rabbi raali ka noqdo faman kana yarju liqa'a rabbi rabbigiisa la kulankiisa qofka rajo ka qaba ilaahu alla la kulankiisa naga rajo dhigid سبحانه وتعالى ضد فربان با إلهي لكلن كيسة لقى رجا دقي جل وعلا أوهوغي لكن إلهي سبحانه وتعالى قفكو خير لدونه وحو الديار قروبا إلهي لكلن كيسة سبحانه وتعالى وحق أووينو إنسانك أو سوغانا ينا وما نمت إلهي انت لكلمو الله رأى لك أهو لكلمو سبحانه وتعالى إلهي قفك الدونية لكلن كيسة فليعمل عملا صالحا هسميو عمل ونسنب إلهي ليه سبحانه وتعالى عمل هسميو ما فالما كليئة مهمته ما هن عملك كلي اسمه لكن عمل كاغو وإنه عمل صالح وعمل نظيف وعمل كتابك يسنة وافقسن وعمل إلهي أجر كاسين أيه وعمل الله وجهي سؤالك سبحانه وتعالى عمل كاسين صالحة وحويا إنه صالح نوض الشرط يجي نروح إليه وآكل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
cibaada ilaahayna yuusan cidna ugu darin waxyaalaha cibaadada ilaahay loogu daro waxaa ka mid ah shususka oo kale ha lagaa sheego ma garanaysaa aad cibaadooyinka iyo daacooyinka caan ku noqotid allagu yiraahdo waa qaari alla cod wanaagsan ah dadku ha ku yiraahdeen maar hataa lagaa sheego asaasama wax yaroo adduunye aad ku heshid saas ma garanaysaa ha lagu ammaano maaragtay caan noqo waxyaalaha lamid ah dhammaanteed waa khatarta weeyaan qofka uu ikhlaaska uu waayo waxaad ogtihiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay xadiiska imaam muslim saxiix uu kusoo wariyey wuxuu noo sheegay saddexda qofood oo dadka naarta lagu shido maalinta qiyaamada oo dadka ahlu tawxiidka ka mid ah inay yihiin saddex qofood oo ugu horreeyo naarta lagu tuuro waxa weeyaan saddex qofood acmaal waaweyn bay sameeyeen oo acmaash lagu badbaadi lahay ah nin caalim buu ahaa nina waxa weeye nin mujaahid uu ahaa oo shahiiday nina waxa weeyaan maalqabeen ayuu ahaa oo xoolahaas u bixin jiray dhammaantood saddexda qofoodba waxa weeyaan acmaashoodii ay sameeyeen ay ku badbaadi lahaayeen waxay isu bedelaysaa acmaal xun bay isu bedelaysaa waa dadka naarta ugu horreeya lagu tuuro rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma garanaysaa waxa keenay arrinkaas waxa weeyaan daacad maysan ahayn ninka caalimka waxa weeye waa caalim fulaan waxa weeye halagu ixtiraamo ka diinta ku waleemayso halagu soo dhoweeyo dadka suka istaago iyo wixii lamid ah caan noqo ma garanaysaa qofka xoolaha badan wuxuu u bixinay halagu ammaano waa hebaad shaqi oo waa gacan furan yaho dadku wuxuu qabtaa oo waa halagu yiraahdo sidoo kale ninkan mujaahidka ahay waxa weeye dusha sare waxa uu ujeedadiisu ahayd ilaahay subxaanahu watacaala qalbigu daalcadaa jalla wacala ilaahay jalla wacala iskama hoos galaan galalku isagama qaldamaan qofka runta sheegaya qofka baan runta sheegayn ilaahay subxaanahu watacaala waa kan og yahay ilaahay lama siri karayo subxaanahu watacaala anaga waana la siri karaya cabdullahi ibn cumar baa wuxuu oran jiray man khadacana lillahi man khadacna fi llahi in khadacna lahu ilaahay dartiis qofkii noo sira waanu sirmaynaa sababtoo ilaahay baan la dhaqmaynaa subxaanahu watacaala laakiin alla marka la yidhaahdo ilaahay subxaanahu watacaala caliimun bidaati suduur weeyaan laabaha ayuu og yahay ilaahay jalla wacala waxa qalbiga ku soo dhaca iyo waxa qalbiga ku jira iyo qofka niyadiisa iyo ujeedada uu leeyahay intaba ilaahay waa og yahay subxaanahu watacaala ila ibtigaa wajhi rabbihi alaclaa dadka qaarkood ilahay markuu ammaanayo wax kale uma aysa samayn ilaahay dartiis bay u sameeyeen subxaanahu watacaala dadka qaarna waxay u sameeyeen bini aadam dartiis iyo cid kale dartiis bay u sameeyeen ilaahay quluubta ayuu daalacdaa subxaanahu watacaala saa darteeda saddexdaa nini waxay sheeganayeen ama ay maanta qiyaama xataa sheeganayaan inay daacad ahaayeen oo alla dartiis waxaan u sameeyeen markaasaa lagu leeyahay kadabt been baad sheegaysa baa laga leeyahay leannahu ilaahay qalbigu daalacdaa maanta qiyaamadana dusha sare la xukumi maayee oo keliyahe waxaa la keenayaa niyadii baa ayaa maarta la akhrinayaa bannaankana la keenayaa waxusila maa fi suduur laabaha waxaa ku jira qalbiga ku jira ayaa ilaahay bannaanka la keenayaa buu leeyahay maalinta qiyaamada waxaa la leeyahay yawma tubla saraa'ir sirti ku qarsooneed oo xaaskaaga aysan ogeyn oo maarta ninkaaga uusan ogeyn oo zawjkaaga uusan garan karin oo saaxiibkaaga uusan akhrin karin oo qofka dadka kugu dhow uusan garan karinin maalintaasaa la qarxinaya ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada waxaan xukumaynaa daahirka inamaa naxkum bidawaahir wallaahu yatawalla saraa'ir dadka dusha saraan xukumaynaa laakiin allah jalla wacala arrintiis waa ka duwan tahay wahuwa caliimun bidaati suduur laabaha waxa u saaxiiba ee yaclamu khaa'inata alacyun ishux wax hadda waa og yahay uu garanayaa wamaa tukfi suduur laaba waxay qariyaan ilaahay waa og yahay subxaanahu watacaala niyada aanu leenahay iyo ujeedada aanu leenahay ilaahay subxaanahu watacaala waa og yahay jalla wacala qulubtan asagaa daalacda qulubtan waa maxalu nadari rabbi subxaanahu watacaala meelaha alla qofka uu ka eego uu ka fiiriyo uu ka damoodo uu ka daalacdo ayaa aasaaska u ah sida nabigana ka ansaxday calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qalbigu meesha ilaah uu daalacanayo subxaanahu watacaala in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رسولك يري عليه الصلاة والسلام إلى قلبكين وضال عنيا فللكين أيو أركيا سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه إلهي وكوبي حوين بن آدم كن أيوه المامي مركا مسألة داسي ومسألة مهمة جماعة إن مارتي ليرادو قفكو أو عمل كيسة أو إلهي وبرحتره سبحانه وتعالى إنه برحمة بن آدم وجيس يأوجيدك له يأدنيو إنه كبر حوم معه إلهي سبحانه وتعالى عمل عن صافي أهين وبرحلان عن أهين وحباء عن لغو دارين وعدك اللغو دارين موياني عملك إله ما أقبله سبحانه وتعالى إدي وحويا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تعم أما سياق النفي كتما سياق النهي كتما سماشا ولا يسوى سياق النهي waxay ku iimaanaysaa nakiraas cumuum bay faa'iideynaysaa cidday doonto ha noqoto
قف عبادة إلهي يعني عندنا الله مضر أما هوينا ما يرى عدة دون تنقط وأنا صافي إلهي سبحانه وتعالى مسألة داسي ومسألة رمضان كمهم بيكوتها سيب بشر رمضان كعبادة مقبولون نقطه سيب بشر رمضان كعبادة يا إلهي كاجا أقبله ما أنت بنسيني أني سن ما أنت بأنو ترجلنا عمل كنجا عن قبنا إنه بشر رمضان إلهي إنه صافي نقطه سبحانه وتعالى سبن وحن كنا هاي استوسس كأيو يعني عام بحيو هلا شيء إيو وحال يريو ما قرنايسا سبن أي فافطيبان كل حجرنا وحويا وحال الدرس كأجو دينتي سكوية لا الدون كي أساس استمعضي ما قرنايسا وحال كيسا نم حج كتجي أو إلهي سوء عبودية تعماه كرو تاجي يصورة أنا قلت دعوي سنية هذا ما دعوي سنية صح ما دعوي سما حقيقة لكن حربا مصور كاسين وادونك أدره هبل حقيقة شو قد ياردي بصيف وشنا حج كي بنوصي سعداء وضت الكلية صح ما صح ما يسناهين تذكر الله اليوم ما أنت قيامة والرجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رسولك وكهلا قف مارة عمل كأو بحسمين أيو صدقة ولا معسوق قرن أيو أي الأمانة أي أو مارة بيحيس وحتى كقرنية إسكده من آدم كله مدكتي سو كم بيحيس ما قرنيسو أما قفك بيحيس فريا ما قرنيو مركا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أعماشة مركا قفكو وإنه إلالية أعماشي سو رياضة استوسس كأيو هلا جاي هذا تعجب كسلياب كأيو ضفوا هوكو أوجادين وحاسة سمية هلو أمانة مسألة خطر لي وياه صون كان نجار عام ما كإلالين أرتاس نبينا عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش الله فرب بدنا تصومن أو صون كل واحد أنك هلين باهي أون مريا وحكي جارين واس باهي أون كجارين محيا لي صون أم عبادويكو وإني توفر الشروط شروط الصحة شروط يكون صحة لها وإن وضحيه وهو وانتفاء الموانع وشرط سان tilmaami doono insha Allah ta'ala marka arinta saddexda arrimood oo u baahanahay bisha Ramadaanka horta waa midaas weeyaan ikhlaaska iyo daacadnimada iyo Ilaahay aan u saafiyeelno subhanahu wa ta'ala amaasheen wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisiina lahu diin mukhlisiin xaaladaas waa qeyd weeyaan amaasha la qabanayo waa inay daacad tahay oo Ilaahay ku qeyday subhanahu wa ta'ala arinta labaad oo muhiimka inoo ah waxay tahay الاعتناء جانب الإيجابي للصيام إن المهم سينه دينا عمارتي عبادوينك إن نحوك صارنا بشوا بشي لبيران شري بشوا بشي لقفة إلي سن شري بشاسي وقفكي مارتي رالي إلهي كنقضو فضلي فربضان هي خيرات فربضان أي إلهي قارسين إياه ليتر قدر كتشره خير من 1000 شهر كن بلاد خير بدن ما أهم كن بلاد ودقنت تخيل روح إلى مش ليتقاتل كن بلاد ودقنت ما يكون بلاد ودقنت وكخير بدن إلهي مدين تساوي 1000 شهر مدين إلهي كن بلاد أس أي لدي ودقنت مصادرة يا خير بول ما وكخير بدن أنت كخير بدن يا قرني إلهي بقرني سبحانه وتعالى بشهر رمضان كوا بشي نفحاتك بشهر رمضان كوا بشي رحمات كسو دقي بشهر رمضان كوا بشي عمرك لا بركيني بشهر رمضان كه وبشي لا جناع سنة جناع سجى يقانا الدنيا جناع سجى دوام مقانا قفك الدنيا وقت كان هذا كلها أو كلام قرنيسا حقاقة أو كلام إنه يبسدوا وحجاره إيبيا وأنا سيد ديار جربا سنة كلام وسيد ديارنا يا فلك الجلا وقت قبولها هقرب جارة أي حولك وحيال جارة هلقتها ذاك جناع سلا هو يقاني لكن ذاك آخر جناع سلا يشع ورجينا يا تجارة لن تبور رجينا يا جناع سيان ولقيس خسارين إلى أكتيسة يقولون وحي يقاني وقت يلا جناع سلا يقاني وقت عبادة ويسعون يسرع كرنيا بشان وابل مارت لو عمره ضاعويك وبالعبادوين كلو عمره وبالصوم كله هجاتيو وبالقيام الليل كله هجاتيو وبالصلاة سفي عن لود وكذا وبالكتاب كإله الآخريو وبالحسك إله اللبضيو وبشي توبة استغفارته وبشي صلاة مارت النبي قول وصل عليه الصلاة والسلام وبشي دتك العافيو وبشي إحسان كلا سمايو وبشي ديق سني مدى وبشي واحترك وبشي طاعوينك وبشي ماركاي نبينا عليه الصلاة والسلام وها عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام بشان وقال نبي قدتك وأقول ديق سينما برناي عليه الصلاة والسلام خير كان وكود دقيقتان برناي جبريل نوا ما يشرب مكو جبريل أي ماذا سنة والله بشهر رمضان كان فضل إلى ذا درت يد بشان أي ما يشرب نبي القرآن كله آخر جري
فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة ضبيل لسيد دايما أما الصاروخ لطوري سيدو مارتي وديريو ونبو خيرات وديري جري عليه الصلاة والسلام بشهر رمضان واستاغي حتى تورمت قدماه إلى لويس كبرران عليه الصلاة والسلام النبي قال إنه مرض يودحلك خيران جري عبادات بود ذلك جري إلهي بوجوي جري اعتكاف بوجلي جري وهو خير خلق الله نبي سعود ذلك وجدي دنبي مله والله ضعف أنا أقول رواب بحنا أسجنا وحويا ونبي غفر الله له ما تقدم بذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام دنبي سكيوه رأيكيد دنبي والله ضعف أنا محا مك ملا نيسا رسولك نوع عاصى عليه الصلاة والسلام سأقول ذلك محايا الإله بنوجو قوم بدنيا عليه الصلاة والسلام wuxuu garanayaa adduunyada iyo maartay nooca ay tahay iyo fursada adduunyada si looga faa'iideysto ayuu garanayaa calayhi salaatu wasalaam nabigeenu wuxuu yiri idaa dakhala ramadaan tuftaxu abwaab aljanna bisha ramadaanku hadday soo gasho jannada albaabadeeda ayaa la furaa dadka la soo dhaweynayaa ahlu jannada loo sii diyaarinaya jannadii wa tuqlaqu fiihi abwaab an-niiraan naartana albaabada waa la soo dhiftaa oo albaabada laga xiraa وتغل فيه الشياطين روايات كان مردة الشياطين وحال حراسه وكل لقبرها الشياطين تروا لقبرها مركاسا ينادي مناد كل ليلة هبين كستا وحا ييري ملك هذه وحا لقيا با إن هذا المقلين أنا أقول أنا المقلين لكن النبي محمد با نوشيغي عليه الصلاة والسلام دغها أن وحكم مقالنا إيه كير نبي نوشيغي وحا رمين بدلنا كي النبي نوشيغي عليه الصلاة والسلام دغها نبي وقفي كريان لكن وحي يقول مقفي مركز ملك بايري حبيك استبا محوليه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أخسر والخير دونه وقفك ددالة يوم موسم كلا ددالة اللي تشوقها وقت كلا ددالة اللي تشوقها هي قفك ددالة يوم سودوا ددال كاغا سودوا وأقبل على الطاعات أقبل على العبادات عبادوينك يا طاعوينك يا خيراتك أنت بكو سودوا وكل ددال وقت الخيرات كوياه لكن dhinaca kale waxa laga doonaya yaa hada shart u socoto oo xumo sameynayso ka joog meeshaas meel aadam maahan gaar ahaan bishaane inuu qofku aad u ilaaliyo weeyaa waxaan sheegay saddex arrimood baan sheego muhiim ah ikhlaaska kowde bishaan oo laga fara qabsado la dadaalo aad loo dadaalo cibaadooyinka iyo ducooyinka iyo khayraadka lagu dadaalo arrinta saddexaad oo muhiimka waxay tahay cibaada markaad sameynaysid dhinaca xun iska ilaali معناه ما أهل عبادة أسمين يسوع كليه إنك وقف في العناص وحلا وبي عبادة إلى عشر ويل هو سكدر ولا حكوش بني كيس هو سكدر ولا عبادة حكوش بني واحد عكريسة إن العاود مارتي صلاة تراويح كنيسة أو مالنت ورميت أسوأ منات تراويح دادي هي صون كاجي هي صدقة دادي ذكر أي قاتان ما أنت قيامتك زي حديث المفلس كما بيقول الشيخ عليه الصلاة والسلام تدرون من المفلس قفة كعي قفة كنكوش كجلي كعي ما قرر يسيبوا النبي كور الصحابة عليه الصلاة والسلام مركاسي هذا المفلس فينا من لا درهم من لا ولا دينار مفلس وحاله هذا قف كان شلم iyo shilimaad iyo taano midna gacanta aan ku hay waxba xoolo aan lahayn ama qofkii markuu xoolo lahaan jiray ka bacd kacay ayaa mufliska la yiraahdaa مركز المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دمها وحوين قف بوحي وأهل عبادة وودادها أو اليقين وأهل طاعة وإلهي كعب صدق أو صلاة بدن أو صوم بدن أو صدقة بدن أيا اللي يراد أبو النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما أنت كمان مركو يما روحوا إيمانا يا أصبر إلى حن إسكا إلى أن ذاتك إلهي كان بدجدي كان واعي كان واحمتي كان وحو كشيغاي لبدا مدخو سو غليي waxa weeyaan qofkan dhiig buu ka qaba oo ka galay qofka xoolo ka dhacay qofkan saabsamay hadaad madax tahay waxa dhici kara 100,000 oo qof inaad dhacdid baa dhici karaysa xoolahoodii marka dhacdo ma nasib lagu dhiibo xugun lagu dhiibo yaad xoolahooda cuntid xoolahooda aad dhacdid waxa weeyaan imisa qof bay noqonayaan maanta qiyaamada waxay dadkaasi u soo safanayaan waa on ay doonayaan waa cibaadooyinkaaga salaadaadii baa qaar la siin soonkaagii baa qaar la siin xajkaagii baa qaar la siin cumradaadii baa qaar la siin waxaa la kala qaybsanaa adoo maalin cad barqadii u jeeda ayaa waxaa la kala qaybsanaya cibaadooyinkaaga ilaa markay cibaadooyinkaagu dhammaadaan oo qofka u dhammaato ayaa markaa ka bacdi dadkiina ay weli xuquuqdooda doonayaan ayaa inta la soo qaado dembigooda dusha laga saaraa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam uma yutraxu fi nnaar dibadna naarta lagu tuurayaa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka cibaadooyinkaaga ha ku shubin
weel hoos ka daloolaha ku shubin waa inaad ilaalisataan xadiis saxiixa nabiga waxaa loo sheegay haweeney aad u cibaado badan oo wadaad ah oo ilaahay ka cabsata subxaanahu wa tacaala laakiin waxay ahayd haweeney af dheer oo dadka ilaahay maagta oo aan laga nabadgelin carabkeeda oo aan laga nabadgelin adinkeeda oo dadka maagta bay ahayd waana cibaado badan tahay nabigaa loo sheegay warna islaantaas oo maartay weliba deeqsiyad ah markaasuu nabigu ku yiri laa khayra fiiha hiya fi nnaar khayr ma laha wa ahlu nnaar buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka laba arrimood buu ahaa hilmaami inaad isu barbar dhigtid dadaal dhinac marka la yidhahdo cibaadooyinka ay ku dadaal bisha ramadaan laakiin ha hilmaamin iska ilaali dhinaca salbiyaadka soonkaagu ansixi maayo meelna tegi maayo haddii aad dhinacyada xun ka ilaalin nabigeena calayhi salaam xadiis baa ka sugnaatay man lam yadaca qawla zuuri walcamala bihi falaysa lillahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu qofkii aan xumida iska ilaalin hadalka xun iska ilaalin aflagaadada iska ilaalin beenta aan iska ilaalin xanta aan iska ilaalin ilaahay danka ma laha inaad maartay wixii xalaal ahaa awalba oo lagu bariya saacadaha yar ha cunin inaad ka tagtid waxyaalihi xaaraanta ahay waa kasii horeeya xantii iyo beentii isku dirkii wixii lamid ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam laba nin oo maartay xantay saxaabi xanteen saxaabada kamid ahaayeen ayaa yiri wallah innii la araa laxmahu bayna anyaabikuma ilaah baan ku dhaartay hilibkiisii baan u jeedaa ilkiina dhexdeeda buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam niman inay ka findhicishaan hilibkiiba uu arkaya nabiga loo sawray calayhi salaatu marka bisha ramadaan qofku ku afray xantay wixii lamid ah ka waran ilaahay waxaan weydiisanaa tawfiiq na waafajiyo khayrka iimaanka ilaahay nagu hanuujiyo cibaadana cibaado saalixa ilaahay ka dhigo dembigana iyo dembiga waalidkeena ilaahay u dhaafo subxaanahu wa tacaala tawfiiqda iyo iimaankana ilaahay una waafajiyo وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله